Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada muujiya janaal. Fadlan saaxiib haddaan nagu cusub tahay nagu soo biir mahadsanid. Maanta waxaan rabnaa mowduuceena inaan kusoo qaadano dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay dunida. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. maamulka gobolka Tigrayga ee dalka Itoobiya ayaa waxa ay maanta u dareereen Dowladda dhexe ee Itoobiya ayaa xiriirka u jartay gobolka Tigray. Madaxweyne ku-xigeenka gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaala ee Tigray ayaa ka digay in go'aanka aqalka sare ee ah in gobolkaas laga goosto taageeradii la siin jiray ay kaga sii dari doonto xaaladda dalkaasi. Xukuumaddu waxay gobolka Tigray ka saaraysaa nidaamka federaalka, taasna waa mid aan gabi ahaanba la aqbali karin, ayuu yidhi Abraham. Hadalka ninkan ayaa imaanaya kadib markii aqalka sare ee dalkaas uu ugu baaqay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed in xukuumaddiisu ay maalgelinta ka goosato dowlad goboleedka Tigray. Kadib markii uu gobolku qabtay doorashooyin goboleedka kana dhaga adeegeen amarka guddiga doorashooyinka. Dhakhtarka gaarka ah ee Donald Trump ayaa sheegay in madaxweynuhu uu dhammaystirtay daawadiisii xanuunka COVID-19, sidoo kalena shaqadiisii caadiga ahayd dib u bilaabi doono dhammaadka toddobaadkan. Dhakhtarkiisa gaarka ah ayaa sheegay in madaxweynuhu si fiican u qaatay daawada ay xaaladiisana ay si caadi ah ku soo noqotay. Madaxweyne Trump ayaa mar sii horreysay sidoo kale sheegay in uu ka baxay doodii Khamiista loo ballansanaa ee asaga iyo Joe Biden. Musharaxa dimuqraadiga ee Joe Biden ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu maskaxdiisa ilbiriqsi kasta bedelo. Ugu dambeyn, hadda waxaa la isku raacay in dooda xigta ee u dhaxaysa Trump iyo Biden 22 Oktoobar ka dhacdo Miami. Ciidamada Azerbaijan oo weeraradii ugu ballaarnaa qaaday magaalada xarunta u ah gobolka Nagorno-Karabakh oo duqeyntii ugu cusleed lagu garaacayo. Ra'iisul Wasaaraha dalka Armenia oo u soo tallaabay dhanka gobolka lagu dagaalamayo kuna go'aan qaatay in uu tanaasulaad bixiyo. Ciidamada Azerbaijan ayaa sii wada horumarada ay ka sameynayaan dagaalka ay iskaga hor yimaadeen Jamhuuriyadda Armenia. Ciidanka Azerbaijan ayaa sheegtay in ay qabsadeen masaafo ballaaran oo gobolka Nagorno-Karabakh ka mid ah, qiyaastiina ay gacanta ku dhigeen 20 degmo iyo magaalo weyn oo caasimad gobol ah oo ah magaalada Jabrayil. Bayaan ay soo saareen taliska Azerbaijan ayay sheegeen in ay si ba'an u garaaceen saldhigyada Armenia ee gobolka Nagorno-Karabakh. Asxaabay, waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Fadlan muuqaalka hadduu ku cajabiyo like saar. Mahadsanid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.